ان waxaan u filaayay inay tan oo kala dhacayso dalkeena way haystay xabash waayo markii si run ahaan loo dhaba galana hadda inooma yahay dal ballaaran bay amxaaradu inaga haysataa kaliya waxaan filaynay jamhuuriyaddii ku tarsanaysa labadii midowday in baan filayn dir dhaba iyo beledweyne ama jigjiga iyo xamar de waxuma kala aha amxaara labadaba waa dal Soomaaliyeed bay ساسان أفلاي إنا إنها حيثتو لكن ما نفلي إن أنا إن جمهورية أي قبصانيسو بل سوى حان سويديا محاد أفلي ويدي إنا قبصانيسو تلك واكي لو سود دولي تلك إنا يسوقوا قومية ده نبكى استباها الله يسوقها بقى ما وناك استباها الله يسوقها بقى أيها لقى سود دولي يعني أمحارو أو لقى دولي مركا واحدين نقرشاها كدر سنو ورمان كان كايمان يا أمحارة ده يسوى السعوداء maxay wadaan inaan ku fikirahay waxayna aan ku fikirin jamhuuriyaddii Soomaaliyeed inay qabsanayaan yaan horta cidina ku fikirin dhacday hal baa loo baahan ilaa dhacday inna wada gaar xanuunkii kii jigjiga joogay iyo kii xamar joogay iyo kii boosaaso joogay iyo kii hargeysa joogay iyo kii gada joogay wayna qabsatay hal baa loo baahan هل كيبان الهادي وين نبان نحبط كل استبان ولا شيء وين لدنا هي قدها لدنا ذا من كادري لدنا ذا نفط ذا كادري ونكي لو كان إنه هيستهدوا هذه النجاح لأنه عدو واحد ما هي نوفي وين إنه 500 لو كان نكي إنه وين إنه عدو واحد وكان قاعد عدو كان قاعد عينه واحد وإلما هقول كل أمحاري ودارتي ودار كل يسلدعتي marka inuu ina qabsanayo hadayna feejignaan inaynu garanahay wax suugaan oo aad ka tirisay ma jirtaa dareenkaas aad dareentay oo ah in wadanku maanta hal isku sugay anigu maalintii la qaxayba waan diday oo waa taantiyay jiiftadii la oran jiray dariya go'wadatada waaba looga sii daray kudka dago qanjo u duro dariya go'wadatadan waaba looga sii daray waayo waxaan arkayay nimankii askarta ahaa inay dhanka kale u rogeen shaarkii oo dhan kale korkii loo rogo kaakiga wuxuu soo baxaa nooc kale soo baxa dadna markaan arkay dadkii oo qaxaya uu istaba ordayo uu isdilayo oo dhibaataysan baan dariniyo go'wada tisan hadii kuu qaadayo waa kuu tirinaya marka waxay hadba dunida yaab kale ha u diir xadhaadhina afka duub kolkaana تميركيga garashiya jirdibaaxintayda adeyn weeyay hadalkee maantana balaandego tiga rogashaday tuul baa sheekh habaaro leedin doori ducana waa bay noqotaa hadalada barwaadadan wayska qaarna waa iska daalacan lada kii dareeshay docda ceelka ugu horay ee fulinta ugu darin dugaagu u looga tiin bayni ma yiraahdeen gud roobku u dii barada dabnooke ee dadkan aan cadaaladii daaqsin jeel u soo marin duugi ka soo haray madabkay ku shooy dadka dago qanjo u diro darin iyo go'wadatada shiinkaan dawarisada baba looga sii daray u dheer yahay yar kaaga soo qaad u dambeyntiisi ayaa waxaan ubadkan dabka u shiday 60kii dugsi u helay tan yartaan abaabulay tacabkeedii laga diiday sida ariga doonka ah ama weyla dirarfay ama door dukaan helay ama gari duqoobo degal maray abaareen sawta daan ku dheeriyahay dunida ceebta taaliyo dambiga islaamka irbadeedii lagu duray kolkay dihatay fooshi dambarkeedu waa dhig dugaaguna wuxuu yiri dabki xalayta aan shiday toobkii dhaxanta kama biyo dugsi waa bakaylo dad baa u soo galay yuclulkii ku sii diray daawus baa wuxuu yiri nabaraan dawalahayn waa wixii idaashaday ee la igu dawgalay daayeer baa wuxuu yiri dadka madaxuyaa dhalay كل كرش وما هيسي بعدنا ديل وين سوق على هذا دي هذا كله هو كبيو كل كان مرتدى هذا الكسيو دل كان وحد شوها تشو تشن ماي إيتاي كوتري ماي أنا وذا تشن ماي أنا كلا تجنو كلا تجي منه أرتوح وانت واحد قالوا جرت هالكل دقليلا ما هذا يلا سكويستا maxaa haray oo la isku haysta balse gabayga waan boganaya aan soo
laba gabay inaan bogtaan rabaa dareenkaygana waad ila fahmaysaa baan maray waayo nin weyn ilkahaaga soo duulamay dhaqantiriy dareenkan qabo adna waad ogtaa anna way suga ilaahayna way ogyahay mana doonayo kaamxaara la socda iyo kala dilaa midna inuu eedeeyo maxab waayo dadkaygaa sida u dhigan maadaama dadkaygu sidaa u dhigan yaho saa aanu akhriyayo waan iska aamusi laba gabay baan sakuun jira gabayga u horreeya waxaa la yidhaha ooha marka iska aragga maqalkiyo idaacadaha hadalkaa waxaa loo abaabulay afrikaa la leeyahay itixaan ma gudubtide kaa xidhan albaabkii akhriskii dib ugu noqo awlaaddeedaa lagu yidhi qof madow aqliba male qaaraddii ayaan daranna afarteeda baallood olol baa ka kacayo aqalkay dhisaayaan albaabkaa la xadayaa arrintay dhammeeyaanna waa la ibakuriyeeyaa afdhabaan dhow aayaraa lagu aamusiiyaa sida igadhka xoolaha maqaar ood la saaraa urse lagu yidhahdaa kuwan kule dawlad baan nahay inama dhaamaan nin walba nima iyagu soo samaystanoo maqaar unbaa sidii xoolihii maar la ursiiyaa maqaar ood la saaraa urse lagu yidhahdaa qor baaba aniga ii dheh anoo oday qudheetiya uur hooyo wada galay afkayguna waryaa yahay diintayduna islaam tahay aqalkiiyo tusmada iyo ardaaguna dhex noo yahay waxa laysu idhan jaray maan garanin anugu ee waxaan islahaa anigu kolkay afartaa jahiya adduunka u kala qaxeen hambadu waxunbay ogaan waxaan islahaa anigu qabiilkay aamineen dhibkiisa kolkay arkeen ilmadaa dhamankooda qoynoo uurkoodaa saafi noqon waxaan islahaa anigu abuurtoodiiyo sinjiga aabbaha soomaaliga ah aqalkay wada jiibsadeen aayaha waxunbay lahay waxaan islahaa anigu diintiiyo ashahaadadiiyo islaamnimadooda iyo allow toobay u noqon waxaan islahaa anigu aqoon-yahankooda iyo abwaaniintooda iyo adeegabaa u kici ee mar waxaan idhaahdaa aqligaa ka foorara marna waxaan idhaahdaa dhagahaa ka awdaran marna waxaan idhaahdaa alla kacabsi baan jirin marna waxaan idhaahdaa ukasbay u baabiin baryadii ilaahay aan ku oohobeeye ooha markiise axada ee bahay inuu uma uu damcado wuxuu u unkaa samays dhigaa orka lagu maqliyo dareen uriyaha sankiyo afkeenniyo koodadkiyo indhaha iyo daamankiyo saablaydiyo uurka iyo labada addin iyo gacmaha astaan dhadig iyo labood intaasoo suuraysan baa ilaahay nafta u gasha carruurtana oohintaa rabbayo uga dhigay afgarad oy ogaataa hooyadii inuu intifaacsi rabo ee soomaaliya heladaa kolkaada shahaadataa rabbiga u ka dhiga islaam shanteenna arkaanta iyo lixdeenna iimaanka iyo maxay aayaduhu dhaheen ilaahay uuna faray xadiisyadu aamineen rasuulkeennuna akiyey aqoon waad leedahay intaa maad ku camal fashaan berigii asxaabihii udgoonow nebiga yaga kuwii inkiree kufiyey qoonkii abujahal lahaa kolkay in la dilo xugmeen adeeradii lagaga baqay ibliis ka yimid shirkii ardaaba 5 wiil ka madha idayl maadu wada dishaan markuu arrintii ku daray kolkii aqbalkii ku dhacay kolkay aqalkii tageen kolkay sayid cali arkeen yidhaahdeen maxamed aawe kolkuu yidhi maanan arag kolkay raadkii aryeen abakor iyo nebigayagu kolkay godka aamineen abeesadii guurtaye abakor rubta raamsatee ilmada kululee ka timid inuu aakuru yidhaa adkaysiga uu ka baday ogaaday rasuulkayagu abeesadii tuuraye abakor gacantii marsheen ilaahu caafi yidhi ibliiskii jiray markaa ogaada inaanu dhalan inaada shahaadataan maxaad ku ilowsantihiin inaydin is-aamintaan maxaad ku ilowsantihiin islaamnimadiiyo sharciga maxaad ku ilowsantihiin ilaahay in laga cabsado maxaad ku ilowsantihiin ee wuxuu yidhi ilaahay addoonkayga kii dhiba adduunkiisa kii dhaca ka dheera agtay wuxuu yidhi ilaahay 14 boqolkaan anigu dhigay aayadaha tirada guud 4 jeer laba rogay ka akhriyaan ku camal falin imtixaankii wuu dhacay wuxuu yidhi ilaahay ruux haddaan ifka u dayn udgoonow rasuulkaan ka tageen adduunyada wuxuu yidhi ilaahay ina aadmi taraxme qalbigiinna ooda ah ingeganayn qoyayn baa idin seejin aakhiro ma idaa subsilad baad arkaysaan maqlaysaan oon idiin akhriyayaa rabbigiinni baan ahay awxaalahaa idhi in yar iyo in badan buu ma ilaaba qoray ee ilaahow ilaah kale ma jiro adiga mooye adigaa awoodli oon cid kale amar ka yeelay aakhiriya adduunkana adaa yeesha idilkood iqra' waxay u timid inay bartaan aadamaha nool waxaana alifka badan loogu daray waa umuur culus akhrina waxaad rasuulka ugu tidhi waa farriin adag kamaad qarin addoommada inaad eebbahood tahaye allaahu akbar
الله أكبر إله أداوي soomaali waa doontay si qalafsan bay ugu doontay qabyaalad bay ugu doontay markii gumaysigu waddanka soo galay oo dhinaca gumaysiga ka baadinaya dhinaci kale dadkii waa laga ganacsan dadkii baa doomi lagu gurin dadkii baa badda lagu daaday wax aad arrintaas ayadana waxaad aragtay ma jiray shalay wax akadkiisa ma jiray horta xaajooyinka waxaa la yidhaha curad iyo ugub xaajooyinka inagu furani waa ugub kolkay xaajada ugub tahayna soomaali oo dhan baa la marin jiro wix heerkaa soo maray yaa la weydiin jira haddii loo waayo oo waxaas laga waayo qoysna curaddaa la gelin jiro xeer baa laga dhigi jira waxa ugubka ah marka anuu kama hadli karo waayo waxyaalaha dhacaya waxa cusubeen dee soomaalidu xeer hore u lahayn dad la dhiibe iyo oo cadowgiisa loo dhiibe iyo dad badda lagu gura iyo maati layska laayi iyo nin yidhaahdaa qorigaygu wixii uu gooyaan leeyahay iyo sodoh iyo wiil soddon wahon kale xishoonin iyo waxa inagu socdaa waxa weeye ugubka marka in soomaali oo dhan loo ururiyo oy xeerkaa doonaan oo lamaba helaye walawaa sidii kii inta hasha durwaagu ka dili doondoonay raqdeedii arkay ee haddana dadka dib u weydiiyey ee yidhi war hashan sumadaa iyo caynkaale waxba ma aragta maya kolkii la yidhi amba raqdeedii waan arkee baadican dhaban baan u dayday yaan ahay inaan la helaynin oo arrintaasoo curada la helayn waan ogahay laakiin inay soomaalidu ka tashato oo waxay ka yeelahayd meel ay dhigta mooye caliyow waxaan anigu maanta ka odhanaya ma jirto dee waxna kuuma hadhin kor haddaan waa ugub kol haddaan ku idhi waa ugub in shisheeye aynu isu dhibo in badaha ka degalayaa badweynta dadka in dadkeenna lagu laayo in hooyo taag daran xabadda lagu dhufto in wiil hooyadiiba inuu dila laga yaabo inuu nin iska ilaaliyo ilmihiisii inuu dilo oo uu gunayo kolkuu wiilku soo baxayo uu qoslo hayaabo ee waxan see tahay ma fiican tahay intaa isagoo ka gaashaamanaya inaan wiilkiisu dilo wax alla waxa inagu socda caliyo waa ugub marka waxaan u daynayaa ugubkaa intay indheergarad ka faqaan oo gabyaagu ka faqaan haddiiba la ogol yahay indheergaradna lama ogola gabyaana lama ogola in isku siyaasadoo ishaysata caliyo lama ogola adna laguma ogola anigana layma ogola nin wax gartayna lama ogola waxa ishaysata dad isku guruub ah oo qaybsan baa ishaysta oon ku ogolayn in yar oon bannaana aan ku ogolayn markaa sidaas waxaan qabaa inaynaan inagu ku jirin wax ka qaban kara waxaan xusuustaa in addis aad ka gabayday oo ku haystay oo jabuuti 1 iyo 2 iyo 3 aad ku haystay midda tan hadda oo isbahaysiga iyo heshiisiinta xoreynta Soomaaliya rajadiisa maxay kula tahay rajadiisu waxay ila tahay horta waa markii labaad jaanisal arta jaanis baynu helay reer dalbeed reer Jabuuti dusha inuu ritay dawlad baa la dhisay waa lagu ciyaaray waa markii saddexaad baan u marayn ee Jabuuti lagu qabto shir oo kii horena waa tii Cali Mahdi lagu doortay Cali Mahdi koo Cali Mahdi labo carte iyo waa markii afraad hadda ee la wada hadlay dee dawladdii ma odhanaya tanaa ka fiican ma odhanaya waayo dawlad la gelbiyey oo laysku raacay oo 4 iyo 5 nin oo markaa iyagu dilaaca mooye dadku ay isku raaceen baa la dumiyey markaa waxay doonayaan iyo waxay diidayaan ma kala garanayo balse maanta waxaad moodaa heshiiska maanta la wado dan unbaa gashay wadaninimana ma gelin sharaf waddanka ihina ma gelin ummad u damqashana ma gelin nin walba adduunkii baa nacay aniga waa badheerahayga ninkii doonaa ha xanaaqo dadna ninuu meeluu gala waayey inuu heshiis toono ilaan dalkiina waa la guray dadkiina wuu dhammaaday labada geesoodna waa laysaga celiyey waxyaalo badan baa loo adeegsaday magacyo badan baa loo adeegsaday
وهرمود كتهاي أمحارو إننا نكالمين يا لو أديسن الهبل 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 باللو أديسن حتى حواليه إن الهبل اللي بطرة سؤال اللي الأمل التماس المستقبل التوكل مارتي ولو أديسن إلا يدادو قالون إيا مرها إيا هبل إيا مقالي هبل لو أديسن واي marka cid kastaba ha loo adeegsaday dadkii waa laga soo baxay waa laga soo faraxashay wax kuma hadhin tala ma hadhin dadna ma hadhin ninana uma roonayno alla uma roonayaa lax kula kufay baa la yidhi meesha qof isu kaasu kaalayu jira qof wali waa madaxdoon qof Soomaali dooni ma jiro qof wali waa madaxdoon intoodii marka isku lodka ahayd baa heshiin dadna walba dan baa qabatay dadna hadda waxaan u malayn in danti ka soo xidhantaado ay soo imanayaan baan anigu horta qaba dantii baa ka soo xidhantay ay lahaayeen waayo ciidun dul saaraad kuma aanaysa uma ahaanayeen dul saar un baa lagu noolaanay nin wali wuxuu leeyahay doorado ay dhaaf cid baa u abuuran iyaga anigu taan baan qabaa marka waxaan u malayn inay dantoodii hadda gashay inay heshiis doonaan meel la gaadhay ragga kan hadda socda sangub xageedu uga jiraa suugaan ahaan horta annaga abwaanada dhowr baan hayno kuwa dawlad ku tirsan iyo kuwa qabiil ku tirsan wacjaladay sameeyaan lala orordo iyo kuwa shacabka أنا waxaan ku tirinayaa inaan kaga jiro geesta shacabka inaan kaga jiro kulley waa degdegaysaan inaan waxaanan doonayaa sarbeeb garaaco ayaan doonayaa oo maxaan u garaacayaa nimaan garanna uma baahni ninkii gartayna waan isfahnaa anigu iyadoon adduunkani joogin baan xorriye sameeyey halkan baanay ahayd dimaasheedu waa ani dimaashada seef baa la kala dimaanaya yeegaa la iigu rog waxaa la ninkani wuxuu duminayaa qaran buu duminaya day kol suugaanta gasha noocaana laakiin kolka hadda kuu sheego hal la dumiye mooye hal la daaya lama oran dabow duur gal mooye dama yahay baa lama oran ha durdurisa mooye doohayna lama oran ee aawayay dariskeeda daynkii ay ku lahayd kii ka dooni lahaa aawayay da'yarteeda dibadaha ku hallowday qaarna layska dilaayo kii ka dooni lahaa dib u soo celin lahaa aabayay dad wanaagsan iyo culimo diini taqaano dul jalaali bilowda aaway roobkan da'aya agoonteeda dagaagtay in dameer niheriye ku qaadan dasakii gelin lahaa aaway maydkan daguugane dibadaha ku uraaye haadku uu ku degaayo kii ka duugi lahaa